waa wax cajiib ah in hindisuhu dhaliyo in lugaha digaaga laga sameeyo kabo. waxaa laga yaabaa inaad markiiba isweydiiso kabahaasiya xiran kara. waxaa kaaga jawaabaysa sheekada Narman Farika Ramdani. waa 25 jir u dhashay Indonesia oo ku nool magaalada Bandung. waxa uu isweydiiyey maalin sidee loo yareyn karaa beer daraynta waxyaabaha faa'iidada u leh aadanaha ee sanad waliba lagu daro qashinka, isaga oo tusaale kasoo qaatay lugaha digaaga oo u arkay kuwo iftiin kale bixin kara. waxa uu hindisihiisa la wadaagay aabihiis oo rogrogay bal sida haddii kaba laga sameeyo maqaarka yar ee khafiifka ah ee lugaha digaaga uu u xiiso gelin doono dadka, lacagna looga sameyn karo. markii ay isku raaceen inay tijaabiyaan ayaa sanadkii 2017 Ramdani bilaabay soo saaristooda. hadda isaga iyo 5 ruux oo kale oo uu ku jiro aabihii ayaa ka shaqeeya soo saarista kabo qayb ahaan amaba gabay ahaanba ka samaysan maqaarka lugaha digaaga. halkii joog ee kobahaasi ahna waxay ka sameeyaan 45 digaag lugahooda, waxaana la iibiyaa qiimo u dhaxeeya $35 ilaa $140. wasaqdu waa ay badan tahay, waana sababtaas tan igu dhalisay hindisahan qiimaha badan ee shaqeeyey, ayuu yiri Narman Farika Ramdani oo sheekadiisa uu xiiso geliyey wargeyska Gulf Today. sida uu sheegay, dhiirigelinta kaga imaaneysa suuqyada ay u iibgeeyeen wax soo saarkooda rag iyo dumarba ay xiran karaan ayaa ku riixay inuu hawshaasi sii wado. kabahaasi ayuu xusay inay yihiin kuwo jilicsan oo luguhu u bagayaan,